Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaalahayga qaaliga meel kasta adduunka ka joogtiin. Kusoo dhawaada markale video cusub. Insha Allah tacaala waxaan idin rajeynayaa caafimaad meel kasta adduunka ka joogtiin caafimaad qabtiin. Intii xanuunsan Ilaahay caafiyo. Waxaan kaloo rabaa inaan soo dhaweeyo dadka cusub oo nagu soo biiraya maalin kasta waa mahadsan tahay. Inta hore noo joogtana nala sii joog. Dhammaantiin waa mahadsantihiin. Waxaan rabaa video yar kooban inaan caawa uga hadlo. Sidii caadada ahayd arrimaheeni ku saabsanaa haweenka dhalidda foosha iyo walaca iyo umusha iyo waxyaabahaasaytay waxaan rabaa inaan ka hadlo xanuun yar oo waxaa jiro oo badanaa gabdhaha qabto waxaan u maleynayaa 98% inuu qabta u maleynayaa xanuun ka yimaada gabadha amba hooyada markay dhasho ka bacdi xanuunkaas af Soomaali wax lagu dhamaa aqaan runtii laakiin hadda taqaan ii soo qor hoos igu soo qor insha Allah tacaala xanuun waxa waa hooyada af Swedish waxa lagu dhahaa eftervärk Allah Swedish ka wadankan joogno luqadiisa laakiin Soomaali wax lagu dhamaa aqaani waa xanuun yimaado hooyada markay saas u dhasho maalmaha u horeeyo u qabanaya caloosha laga qabanaya meesha hooseesa caloosha aad mindhicir meelahaas waa caloosha mindhicirka meelahaas aad looga qabtaa hooyada markay dhasho maalmaha u horeeyo waliba wuxuu zaid imaadaa markay nuujinayso cunuga yar babyga markay soo qabato ee soo dhaweyso ee nuujinaysa hatta waxa maqlay gabar saaxiibana dadku ay sheekeynayso waxay tiri markaas cunugay u soo qabto oo nuuji isdhaaf waxay tiri xanuunka zaid ugu noqdaa markaas waxa rabay tiri cunuga tuur oo dhaaf waxba siinin xanuunka dartiis marka xanuunka zaid waaye gabdhaha qaar ma yaqaanaan gabdhaha ugubka kale waxa laga yaabaa inaysan aqoonin isdahaan talo maxay taa waxaan bismillaah marxaba xanuunka maxay taa maxaa kugu dhacay wax ma kugu soo har dhiig ma kugu soo har isdhaada laga yaabaa laakiin xanuunkaas waxa dhaqaatiirta ay sheegtaa iyo umulusooyinka minki cunuga meeshuu ku jiro isku soo aruuraa buu kala fida moogta cunuga meeshuu ku jiro waa kala fidays cunuga maalmaha ka dambeeyay uu weynahay meeshan way sii fidaysay hadda laakiin maadaama cunuga bax way isku imaanaysaa marka waxa laga yaabaa adiga 3 maalin ilaa isbuuc inay kugu qaataa laga yaabaa laakiin ilaa 3 maalin 4 maalin badnaan dadku way ka yaraataa xanuunkaasaytay marka waxa waaye minkii isku imaanayo waay marka gabdhaha qaar aad uga walwalo laakiin aad ay u fiicantaa waayo ciyow ku waa reysanaysaa marka aad ay u fiicantaa cunuga nuujiska badi marka cunuga asaaba nuujiskiisa iska badan maalmaha u horeeyo marka waxa jiro maxaa sameeyaysaa waa marka saas oo kale dhakhtar ma la raadsanayo waa normal oo wax ka qooyo kasta ku dhaco waaye laakiin waxa jiro kiniini ay qaadanayso xanuun baabiye kiniinigaas laakiin waa inaad dhakhtarka ama umulisada weydiisaa kiniinigaas iskama qaadan kartid hadda aniga wadanka joogno albidoon oo kale waa qaadan kartaa laakiin ibreen oo kale ma qaadan kartid marka cunug nuujinaysid ibreen ma qaadan kartid hooyada uurka laxtay ma qaadan karto kiniiniga ibreenka waxa waa hooyo uurlo iyo hooyo nuujinaysa ma qaadan karto laakiin kiniiniga kale jiro ibuprofen mid la jiro magac exactly ma xasuusto laakiin umulisada weydii laakiin albidoonka kale waa huba in la qaadan karo waxa albidoon hooyada uurka leh waxa kale oo sameyn kartaa geed jiro waxa jiro biyo qandac lagu shubaa jiro biyaha soo kululeysto maxaa la dhahay kaasoo kale waa iska saari kartaa caloosha meesha ku xanuunayso hoose iyo dhabarka waa iska saari kartaa waxaa sameyn kartaa biyo qandac kusoo qubeysan kartaa meesha ku xanuunayso biyaha caloosha isaga dhaqan kartaa marka waxyaabahaas waxaad guriga ku sameysan kartaa waaye kiniiniga noocaas waa qaadan kartaa xanuun baabiye ani waliba isbitaalka 2 maalin ugu jiro kiniin xanuun baabiye la isiinayo waa aad u ahaa xanuunkaas oo yimaado marka dhashay ka bacdina waxa waa xanuun iisoo sheeg cunug ka dambeeyo cunuga koowaad waxa laga yaabaa inuu iska qafiif yahay laga yaabaa kan dambe asigana xoogaa wure ilmaha si u kala badan yihiin ilmaha xanuunkan u badan yahay oo ilmo badan hadaa dhasho xanuunkan uu badnaahaya sorry inaan kaan ximarabo laakiin waa saas marka waxa sameyn karto wallahi oo jirto dhakhtar raadsan karto ma jirto oo wax xanuun dhakhtar u baahan ma laakiin dhakhtar waxa raadsanaysaa hadii caloosha ku xanuunto feebarna ku qabato waayo markaas infection jiro minka infection jiro marka infectionkaaseti soosan kugu faafin oo problem kugu keenin hadeeba caloosha ku xanuunto feebarna ku qabato aadna mar dhow dhashay please dhakhtarku u tag waayo waxa u baahan tahay daawooyin u baahan tahay lagu siiyo in lagu baaro u baahan tahay marka qaar xataa waxyaabo ku soo harhar caloosha sida dhiig iyo kale
waxyaabaha oo caloosha ku jiro kusoo harharayo. Marka waxaa loo baahan yahay iisoo sheeg ina dhakhtar u tagtid. Feebar normal ma ahan, qofka feebarna ku dhacdo normal ma ahan. Xataa xanuuno waxaa jira xataa hooyada markay saas oo kale u dhasho oo naaskoo kale problem ugu imaado. Laakiin taas marka la ka hadli doona insha Allah arinta oo naaska iyo naas nuujinta. Hadda barnaamijkan intaan uu ku egyahay aad iyo aad u mahadsantahay saan nolol socoto hadduu video ku cajibisay share gareyso u gaara abaayo ugu aan aqoon insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.